وانكو سلامة وانكا هذا إن قولك قرمو دعا ما شيء كرو مشيكر ما يدهدي وشيك كله ولو بهاي مداس لكن هذا ما هو لكن هذا مو محد كودا ويلك كورسنا مادام هون مثل أروس كأيام هوبين لبض أيام بهوبين لبض أرماجي فيلم هذا كان محل وترجمة إن سيدا ذوق استوديو فام بروج oo hadda waxaad leedahay miya guurka aan xaaskayga karan guursaday go'aankiisa wuxuu ahaa go'aan khaldan waad saxan tahay go'aanka guurka aniga waan ku qaldanaa iyada xataa way ku qaldaneed inay go'aankaas gaarto aniga asaga go'aan ayaan gaarnay waxaana go'aan ku gaarnay marnaba inaan wada noolaan karin dhexdii anaga qalad kama dhex dhicin laakiin waxyaalo yar ay mar walba bulbulin jirtay waa inta kaliya haddii waxyaaba sadexaya guurkaas maba sii raagayo horta shaqadan markaan ku soo biiray marka hore kiisas noocan oo kale inaan arko aad bay u yareen haddii ay dhacday kiis noocan oo kale in lay keeno sanadkii waxaa laga yaabaa 2 jeer ama 1 jeer inaan arko balse sanadadan dambe waxaad ba moodaa kiisaskan inay isa soo dabahayaan taasna waxaa caddaynaysa go'aanka marka hore la gaaray inuusan ahayn go'aan lagu kalsoonaa aniga maraba inaan sameeyo waxyaabay dad kale sameeyeen arrintaanna ima fudurun ahaantii go'aankan si dhib leh ayaan ku gaaray haddii aad u malaysaan inaan si fudud ku mar walba gaaray qasab maahan dhibka dhacay sida loo xaliyaa sida loogu salgaaray waxaa loo baahan yahay nolosha horay in loogu sii socdo oo keliya maan waxyaalihii hore in dib loogu laabto aniga nolosheeda oo dhan ayaa i hor taalo arrintan haddii aan ogahay inay qalad tahay sababta aan nolosheeda u baabi'inayo waa maxay tahay problemka cusub oo haysta jiilkan cusub si fudud ayaad go'aan ku qaadanaysaan haddana si fudud ayaad ku kala tagaysaan mudana kabuur ma ii sheegi kartaa go'aankan ee gabadhaada gaartay sababtaad adiga ugu raacaysa maadaama aad tahay aabbaheeda mudana garsoore runta haddii aan kuu sheego guurka marka uu dhacayay maantoo kale in ay imaanayso cid ku fikiraysa haba yaraatee ma jirto maadaama ii dhacda aniga waxaan ku qasbanahay gabadhayda garabkeeda inaan istaago adigana waalidkaaga maxay ka leeyihiin mudana garsoore inta aanan horta iga raali noqon mudana garsoore subax wanaagsan ayaan ku leeyahay waa salaamantii dhammaantiin aniga waxaan ahay jay aabahiisa run ahaantii adiga fikrada soo jeedisa dhammaantood aniga waa aan kugu raacsanahay oo kuguma diidani dhallinyarada maanta jirta waxaan rabaa waxyaabaha ay sameeyaan hal iyo laba inaan ka idhaahdo marka koowaad ee la israadsanayo wiilka iyo gabadhu labadooduba dan ayay leeyihiin dantaas marka ay helaan kadib laguma nagaanaya haddana waxaa la rabaa wax kale oo cusub in la raadiyo run ahaantii waxaan ku tilmaami karaa waxa u saxan iyo waxa u fiican intaba ma kala yaqaanaan annaga waalidiin baan nahay warkaa ii laalaabin waxaad rabto oo keliya ii sheeg garsoore horta wax kaliya asraba wax kala maan wax soo la jeedaa go'aanka dhalinyarta ee rabaan oo kaliya unuka inaan ku raacno waa sidaas horta adiga yaa tahay aan jee adoogiisaan ahay okay ninkan aabiisan ahay ayuu dhahay sax wey anigana aabiisan ahay okay adigana yaa tahay jay aabiis wey anna aabiis ayaan labadeena common adoo aan waa sidaan hore kuugu sheegay waalidiinteeda ayaa go'aanka gaaraya kaftanka marka hore waa inaad meel naga dhigtaan haddii ay noqon weyso labadeen inaan farxad ku noolaano dadka kale taladooda maxay noo soo kordhinaysaa inaan kala danaysano ayaa ila wanaagsan 50% ayaan u baahanahay ka yarna ma rabi ka badanna ma rabi markiiyaanba ku dhahayba dumar in lagu kalsoonaado ma waa saxiya ninka excuse me horta adigu weligaa ma aragta nin iyo naag inta kala tegay ninkii naagta uu meher weydiisanay meher inaad qaadatid ma rabtid miya adiga garsoore markii ay maxkamadda muddo soo jiidantay dooddiina iyo murankiina iyo faaqidaaddiina la dhegaysatay waxay go'aan ku gaartay labada qof ee meeshaan timid in go'aankooda ay oggolaato weliba marwo kaajal kabuur iyo mudana jey maxkamadduna way xihan tahay gabadhaydii ogow qof walboo bini'aadan ah dhibaato uu la kulmayaa laakiin waxaa loo baahan yahay adiga mar walbo in aad dhoola caddaysid oo aad faraxsanaatid gabadhayda kaale hadda waa baxaynaa guriga ayaan aadaynaa waxba ha murgi okay aniga waxaan fahmi la'ahay xaaskaaga ayadoo ku khiyaantay haddana sidaas ay tahay adiga lacag ayaad siinaysaa war lacag ma kugu leh qoftaas maxaa kaa qaldan يا قيفلي
aniga qoftaas waan jeclahay man rabo dadka hortooda inaan ku fadeexaysto ifahanoo ku baryaa igaar iga dheh aan ku dhahay beryaan runtii waa weynaatay waxaana bilowday wax badan inaa faantid saanankaa rabaa hor loo soco ma taagno qoftaas way i khiyaantay khiyaanada intaan kacdayno waqtigay qaadanaysaa waqtigaasna ma rabo inaan iska lumiyo okay tamaam wiilkaygii hadda maxaad qaban rabtaan hadda xafiiskaan socdaa war aniga xafiis iyo waxyaabo noocaasa kaalama hadlin ee mustaqbalkaaga iyo ayatiinkaaga dambe maxaa u dambayn doona maxaa kuu qorshaysan hadda ayaan gabar furay xogaa aan raaxaysto jaanid sii maxaa waay hiis maskaxdiisa isku soo dhaxyaacin badda iska soo nasta miska dhaftido mahadsanid bye bye reer dhikaale wiilka meeshaad gacanta ka qaban lahayd miyaad qar ka sii tuuraysaa see waa adiga inaad ka taxdirtaa loo baahan yahay waxyaaba noocaasoo kale laguma my friend sorry akhi I am not touring any khar but I am trying to encourage for something because encourage laakiin inaad shaqo u abuurtaa loo baahan yahay qofka shaqaa loo abuuraaniyo wad shaqa ay un abuuringa sababtoo ah cunuga hadda go'aanas gaari waa shaqaysanaa magaaladan waa weyn tahay nin geesi inuu noqdaa loo baahan yahay sida aabbihiis oo kale ah waa naqanaa taas iska dhaaf dhib ma leh gabadhayda aniga booskayga haddii aan ku jiri lahaa ninkayga iskama furi lahayn waan ogahay inuu idhibo mar walbana oo i waxyeeleen haddana sidaas ay tahay iskama furi lahayn ee farxad ayaan la qaybsan lahaa gabadhayda waan ku jeclahay सोचता रहता हूँ ये हवाएं लाई हैं नई ख्वाहिशें बढ़ती सी जा रही है मेरी हसरतें फिर से कुछ आहट सी जब होती है घबराहट सी
फिर होती है बिन बात के सिरहन सी कुछ होती है हाँ, क्या मिलेंगे इस दिल को नई मंजिलें क्या सजेंगी दोबारा वही महफिलें फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से dhibka jira haddii aan kaaga sheekeeyo wiilasha wanaagsan ama naaga ayay qabaan ama gabdho ayay saaxiibo leeyihiin ama waa ay wadhi dhinteenba lama arkaayo nin wanaagsan sanadkan naga dhaaf yaaqee micnaaga maxaad ku wadaa gabdhaha fiican wiilasha fiican ma helaan maya sidaas maahan laakiin waxaan ka wadaa wiilasha fiican waxaa ka badan gabdhaha fiican sidaas darteed ayay gabdhaha fiican iskaabul u yihiin badanaa waxaa macquul ah wiilka gabadha inuusan ka helin haye run ahaantii waan ka helay wiil afkiisa inaan arrintan ka maqlo laakiin midaan rabay inaan kuu caddeeyo waxay tahay wiilasha xoogaa yar dhanka jacaylka inaysan kontaroolin waalayaab adiga albarka igraadinaysa aniga dhinacaaga ayaan taaganahay ka warranay ku aaway dhankaaga midig soo fiiri hay maxaan samaynaa wixii aan samayn lahayn iyo wax kale inta badan gabdhaha ayaa gaara kolley hadda waan israacinaa kolley adiga waxaan raalkeen aniga inaan kugu sameeyo lagama yaabo hadda gaacalisa maxaad leedahay ma soconaa waxaan hadda aan sameeyey weligay ma samaynaan ku dhaha waa iska xishoonayaa ya ma runtaada laakiin aniga sidaas ma dareemi ka warran yahay naga musiyaaqay adiga ciyaartan kaaliyaaba hal midaan rabaa inaan ku weydiiyo lambarka dhag igu dhehno nambarka telefoonkayga mar hore ayaan ku siiyey war socon ku dhaha ani kaas ku waad weydiiyo isoo wacdee maxaa dhibka jira ii sheeg fiiri sheekale maa wadeena mase ciyaartan bilaabeena aniga ciyaar badan aan ku haya laakiin xogaa nus sac siino aan ku sheekaysano maya bu hadda ifahantimo musiyaaqay lambarka waxaan ka wada anaa ku fahansiinay adiga sidaana u qurux badan tahay meeqa gabdhood ayaa soo ba'sataan ku dhaha meeqaa soo cicishay oo hurdadaad u diiday haa runta haddii aan kala hadlo wax weyn maahan gabdhaha qaar ma jeclo arrimahooda khaaska ah inay ragga ay u sheegaan raggana waxay caadaysteen su'aalaha noocaas oo kale in aysan ka aaminin gabdhaha ay la joogaan waa intaas oo keliya haddaba fahantamo aniga hadda waan fahansanaa wejigaagana waxaa ka muuqda intanina aniga saaxiib la ahaa waana ku fahmay maxum hadda ii sheeg meeqa eed la soo saaxiibtay markaad adiga runta ii sheegta ayaan kuu sheegayaa anigan aan kala bedelanno yaaqi dhib ay ugu tahay aniga su'aasha noocaas oo kale kama jawaabi kari maxaa sameeya ii sheeg tirada nimankaa saaxiibada lahaa anigana kuuma sheegayo 7 nin 7 sugid qof iyo caadi matid koley aniga ma aqaano sababta su'aashan wiilasha ay gabdhaha u weydiiyaan laakiin runta haddii aan ka hadlo xisaabahaas aniga waxaan u sheegi karaa qofta nolosha aan wadaagi doono inta ka horeysa qof kale inaan u sheego lagama yaabo inta ka horeysan adiga kuley waxaan ku dhihi lahaa baashaalkaa isku wado kadibna jawaabta waad heli doontaa okay haddana mac salaama
xafiiskayga cusubna waa kana artista ayaan ahay waa xafiiskayga cusub iska ogaadaya waaw gabadhaydii wax yar leh ingiriiska joogta ciyoobo waad la qabsatay marka kalaadna soo wixaysa waxaan ka baqaa inaad luqadooda nagula hadashid gabadheeda meesha markaa tagtaan ku dhahay adiga dhan quruxle ayaa noqotay teeda kale waxaan kaa raba mataqaanaa hal sawiroo macaan inaad ii soo dirto waxaan dhiganaa social media kadibna comment badan ayaa ku helaa ku dhahay teeda kale gabadheeda waxaa jira famil aan isku fiicannahay familkaas wiil ayay dhaleen wiilkaasna naagti way kala tageen teeda kale wax ilmo uma joogo anigana waxaan dhahay gabadheeda wax ilmo uma joogaan marka waxaan jeclaan lahay gabadheeda wiilkaas inaad isku dhegsataan teeda kale waxaa jira mataqaanaa familkaas wiilkooda haddii uu naagta furay lacag fara badanaa la siinaa meeshaasna dhiilaa ku jiro waxaan jeclaan lahay gabadheeda wiilkaas inaad ku qabsato waan ku baryayaa iga dhaaf aniga maraba hooyo inaan noqdo kaale adiga ma waxaad rabtaa gabadhayda ilmo inaad qoorta u gelisid gabadhaydii hooyadaa warkeeda iska daa kaale adiga maxaa kugu dhacay aniga waxaan rabaa gabadheedii ilmaha dhashay inaan arko idhegayso runta maan dhacaysaa runta waa lama huraan gabadhayda boorsadaada alaab ayaa ku jirto alaabtaasna waxaan rabaa gabar meesha joogta inaad u geyso xooga qaraabananano jimkana ku fiicanta marka alaabtaas way saacidaysaa oo ku barya sida ugu dhaqsiyaha badan leh alaabtaas waa inaad ugu geysaa hahey arrintan marmarsiyo ayay kaa tahay waxaad rabtaa si aan dadkaas ula kulmo soo maaha gabadhaydii haddaba waa kuu sheegay hooyada ha ku kalsoonaanin waayahay hadda barnaamijkayga ayaa ii bilaama raba wax yar kadib ayaan wada hadlaynaa okay waa idin jeclahay kaale maxaad ula jeedaa ha ku kalsoonaane maxaa kugu dhacay shaqadaada ana aqaane ma iga dami kartaa qadka okay aada umahadsan tahay farshaxanka inaad fiirsato miyaa halkaan u timid mise wax kale ayaa jira aniga meesha waxaan umaaday farshaxanka inaan fiirsado farshaxankana aan iibsado laakiin sidaas ilama ahan aniga okay haddaan ku dareemay adiga waxaad umaleynaysa adiga inaan ku fiirinaya soo maha adiga kuma fiirinayna laakiin waxaan fiirinayay sabirka adiga kaa dambeeyey laakiin runta haddaan kuu sheego adiga ayaan ku fiirinaya laakiin waa qalad soo moogid qof noocaas in loo fiiriyo laakiin dhudhumasho qofka inaad ku fiirisid sax miyaa ii sheeg taas xataa waa qalad inaad dhudhumasho ku fiiriso ma fiicno qofka midaada kale aniga waan daasanahay haddii aad rabto farshaxan inaad gadato naqso gado waan baxayaaye aniga farshaxankan hore un gatay balse waxaan ka fikiraya farshaxankan gurigayga meesha aan ku dheji lahaa oo keliya adiga soo mahan jay qannaa ها وأنا جيكنا run ahaantii iga raali noqo wax qaldan ayaan sameeyey inaan kuga xanaaqo ما دب ملهن إلى المرة هوري شكل أنا بلاوي حتى أنا لما يسترى كلا ما إمادة ها weliba maalmo ka hor ayaan imaaday halkan okay fadlan kadib ma lagu soo fasaxay meesha inaad ka shaqeysto micnahaaga micnahayga wax kale fartaada ayaan ka dareemay calaamadda farantiga waxaana ogaaday adiga in lagu soo furay kadibna halka imaaday adiga dembibaare miyaa tahay ii sheeg waan jeclaa laakiin ma naqanin laakiin shakhsi ahaanteed ayaan dembibaare u ahay waan ka helay run ahaantii anigana goordhow ayuu furiinkayga dhacay okay ilaa meeqay kugu qaadatay adiga mar walba su'aashan lama weydiinay ma micnayga sidaas ma ahayn waxaan ku weydiinay london joogisteeda meeqa ay kugu qaadatay micnayga meeqa joogtaan ka wadaa iga raali noqo run ahaantii qaladan ku faham aniga 2 isbuuc ayaan joogaa london furiinkaygana muddo 5 bilood ayaa ka soo wareegtay waaw waa arrin fiican halkan waqti ay joogtaa qof ajnabi ka ahna arrintaada dhan waad u sheegatay waxba kama qarin ilaan adiga jaaniska siiso ma ha beentaada maan ilaan aniga xataa furiin ayaan soo maray
igraal naqarun ahaanti waxaan ku dhahaa ma aqaano hambalyo miyaan ku dhahaa mise ها همبليا وادي كرتا إلين دتك وحلاقيها بأراسك إن سكو فرحسن هذه سكو فرحسن أي كلتا أنا وحلو بها إن لسكو همبليا أديكنا وادي همبليا كرتا شيء تدك waad waalan tahay adiga hadda farshaxankan aad iibsatay gurigaaga ayaan kuugu soo diray waa lagu keenay هذا أنا هذا كذا وان فاهم حد كده ورك يتوب بلسي هذا أنا فرشان كذا أنا كوك أنا أدينا هالكن وأنا تكتك سما أنا أنا ماسك بحياة أوكي لكن أنا بيكر حربا ما قاعد إنت إيشك ما قاعد وام حي بيا أدينا بيا ما لو ده بيا لا لا ها هو إلا بيا وصاحبتي الجودو أي إصبرنا هذا سنوع فانسية ما يبغى أيضا الله كذب أي هذا كل هذا هلو تلفون قدامي سكور أنا جن عدك ويجي حنا مرة بعد لبدينا ما كلنا سوق أديكني أفك أي تيجي حتى ما إلى هذا يمشيين وحن سمي إلى هذا ما أقانو حكي بلاوا كاجل يا ليدها كاجل أوكي إقرأ القيا وحير هلو كاجل هاي مامي بيا إقرأ القيا ها مامي ساسمان marwa taleefankaaga waa kana waa la soo wacay waad mahadsan tahay mahadsanid barminder biya waan ku salaamay iga raali noqo kuma baaqaane iskoolka miyaa ila dhigi jirtayna maya taleefanka jey ayaan sawirkaaga ku arkay sidaasaan ku aqoonsan aniga qofya waxaan aniga samayn karnaaba samaysee mid aan ku weydiiye adiga ma waxaa tahay xaaskii hore ee kala taga mise saaxiibtiis hore maya maya meesha farshaxankayga ayuu yimid taleefankaaga ayaana u soo dhacay saas dhawaaba yaabee mideeda kale halkan maxaa ka soo doontay run ahaantii aniga nin barminder lahay ayaa hooyaday ayadiis wax ugu soo dhiibta marka asagaan u geyn rabaa macasalaamo aniga waayo barminder maxaa dhahday ma adigaa barminder aniga waxaanba u malaynay maxaa u malaynaysan ii sheeg alaabtan walaalkaya iskale isdeji marka laakiin waan ka xumaha walaalkay lama kulmi kartid noo sidaas darteed waa arrin wanaagsan aniga xataa ma rabin inaan la kulmo isdeji marka hore walaalkay sababtoodna kuula kulmi karin ayaan kuu sheegaya naag caddaan oo baasaboor dhalasho haysato ayuu guursaday ayadeyna gabar kastoo hindiya ayay usoo dhiibaysaa alaab si uu guursado marka ma soconaysano abaa sida kaa muuqato iskaabulaataan ku dhaa xabadaa ku dhegsatana waa raadinaysaa dhaxanta ka dugaalsata run ahaantii taas ma sheegi karo balse adiga iyo jey aad iyo aad ayaad iskugu fiican tihiin su-aashaada haddii aan ka jawaabana aniga uma baahni xilligan nin inaan la saaxiibo sababtoo ah goordhow ayuu furiinkayga dhacay mana rabo mar labaad inaan fududaado ama aan wax qaldan sameeyo runtaa waay laakiin goormee lagu furay ii sheeg 5 bilood ka hor ها شن بلاد اللي جوجا فرنكا قفا كو قنعد ولي ماركن ميا اوكي شي مايا قفان لا كل ما لهن arrintan inaan kula wadaagayaan baa min ilaa aniga xitaa shukaansi booja ma jira miya ishag inaba hal xabba ma arkin shantan bilood aan garoobka aniga cidaan la kulmo malaha sheekala la cuudu bilaysta way taado run ahaantii aniga ma cuudu bilaysanahay waan ku qanacsanahay shukaansi la'aan say u joogtaa walaale waa sidaan kuugu sheegay waan ku qanacsanahay mida been u sheegtay xitaa maysid ha ma wala helayo soo mahan abaa haddaa u baahan tahay mid kale kacsan oo lacag tahay taas macquul maaha sababtoo ah kii fiicnaaba adigaa qaata kuu xumaa rabtaa maano aniga inaa qoorta ii geliso ma yeelaayo midaas iga dhaafaan ku dhihi lahaa okay waaya waxaas iska dhaaf hadda ani saaxiibkeeyaa ballansan inaa aadana waan rabaa haddaad iraacda say u aragto hal meel aan wada tagno soo wada baashaalna saddex ya aniga ha okay haddii ay sidaas tahay dumarkiina meel qaldan eed wax ka fiirisaan haye xageen fiiriyaa ii sheeg dhinacan magacayga waa vijay dimaak waxaan jiraa 45 waxaan rabaa noloshaada inaan daryeelo sida carruurteeda aan u daryeeloo kale maya waad mahadsantihiin hey qof kale kuu dhiman maxaa dhahday oo sooniye gaclis sideedse aniga waxaa maqlay adiga in aad qof soo furteen ka waran aniga haddii aan isku waa la gacan gala jeceli farxaddii kalsooni inaan ku siiyo oo ku daryeelaan maxaa waaye ii sheeg jay kaajal maadaama dalka ay ku cusubtaa dad qaasa waa inaan la kulan siinaa laakiin sabab
iskaabul guurdoona waay maxaa dhacay eh oo hadda maadaamaan iskaabula wax duqaadatee miya aniga ee dad la ii soo raadinayo maya arrintan waan fahmi lahay maxaad ula jeedaan ii sheega bal anaa dib hadilaysaanbe may macnihiga sidaas ma ahan waayo micnahaaga ii sheeg micnihiga haddii aan kuu sheego wax kale maahan may macnihiga waxaan ka wadaa wax kale maahan saaxiibadaada ayaa ku keenayso qofka adiga nolosha wadaagi qofkaan baro adigna qoftaan baro kadibna nolosha sidaas ayaad ku wadaagaysaa sheekadan sidaas ayay ku dhammaatay haye soo sax maadalkii dhegeysa bal taas macquul maaha yaa qay iskaabul waa isku baahan yihiin لازم لبدينا وأنا تقولنتان أطول شكستان ولا ودكان أوكي بل وحنو ملينا هذا الكاج إنه صحيح لكن ضد سيدايكو كل ما يعني إيه شك بل تاسان فهمي تاسوح بين مان وسيدا أنا فيها أن كل نقلة إيه أديك فيها سيدا تقولنتين ولي وسيدا حدنا سيدا هذا أن أول جوجنا أوكي شكلان وشك رومانتيكا إن رومانتيك ويت هاي لكن وحرجينا سيدا صفوت إن نقف ولا كل ما ها لكن dadka dunidan jooga uma joogaan adiga riyadaada inay ku rumeeyaan oo kaliya aniga rajadayda wax weyn ma ahanbo kaliya waxaan u baahanahay qof garabkayga inuu istaago igraali noqdo shaqada laga soo hal daqiiqo ii kaadiya haye Jessica jecelka ma ku soo wacay haye qandaraaska ma saxiixday waan gartay waxyaabahan aad samaynaysa ima cajabinina iga jooji ayaan ku dhahay maxaa sameeyey micnaha tilmaamada aad bixinaysid aniga tilmaam bixin ee wax walba afkayga soo dafay ayaan iska sheegay qofka bini'aadanka ee dareenkiisa inuu ficil ka bixiyo muhiim maahan okay hadda waxaan dareemay waxyaalo badan adiga aad dareemaysid laakiin waxaad diidan tahay inaad caddayso haye waxyaabahan jooji ayaan ku dhahay iga jooji bataatanba mideeda kale biyaha soo lama socotid saaxiibada inay tahay marka waxyaabahan jooji ayaan ku dhahay waa ceeb maasanid mahad celintana maxaa waaye ii sheeg aye kaajal ma u sheegaa sababtaad aniga igu mahad celinaysay aye kaliya waxaan ka codsanaya jey inuu dhaafo fawdadan uu igu wado waa intaasoo keliya baay jey waa fikrad xundaa aniga fikrad xun ma keenin aniga qof xun ma ihi baashaal oo keliya ayaan waday okay jes intaan ka badan kuma darsan karo bis iga dhahay hala ku darsa caadi waaye maya iga dhaaf yaaqay laakiin aniga wax ma baan bas waa बदमाश है शैतानिया नई सी रोज करे ये दिल जो है बदमाश है शैतानिया नई सी रोज करे से गुजर जाता है जाना होता है इस तरफ देखो किस तरफ जाता है ऐसे भटको नहीं कोई मिल जाएगा क्या पता कब कहीं ये दिल जो है बदमाश है बदमाश
baad iga joojiye biyaha gurigeeda waa xaggeeda adigana gurigaaga waa dhinacaan anigana gurigeyga waa dhinacan labadeen waa isleexnaa soo bax nakeen soo bax qaladka dhac ma taqaanaa adiga aniga aadan u yaraano faraantiga markii la ii gelinayo micnaha guurba ma gaarin xilligaas mas-uuliyaddaas inaan qaadana diyaar ma u ahayn ilan tankayga maba aanba soomaa arrintaas inaan sameeyo marka wax walba khaladay ku dhaceen wax walba way isku qasmeen wax walba adiga ma fahmaysid jee dhibka jira waxa uu yahay iska dhaaf marka adiga fahansiin anaa ku fahansiinayo nimanka waxay jecel yihiin gabar aad uga yar in ay guursadaan haye hadda adiga biyaasa isku tihiin waa hesha soo maaha waan helay biyo ayaan helay balse adigana waxaad raadinaysaa gabar adiga kaa yar sidaan filayo adiga gabdhaha ayaad xiisaysaa maya sidaas maan ma fahmaysid miya waxaad fahmaysa malaayaqay si fiican ayaan kuu fahansanahay adiga waxaad tahay gabar yar laakiin wiilkaa yar haddii aad guursato waxaad ogaataa si toose xabsiga inaad u gelaysid jeelka lagu geenaa adiga wanaaggan oo dhan waxaad iigu samaynaysaa miya labadeena inaan isku soo dhawaan dhibloataya waa ku fahmay micnahaagoo dhan waa iga dhadhacsayaan ku dhah mame aniga micniga sidaas maahan ilaa hadda aniga maba heliba gabadh aniga ii qalanto kaal isa dhow meel kale ayaan tegaynaa wax walbana markaas waa la ogaan karaa laakiin adiga hal mid waa inaan ku ogeysiiyaa sabab ii sheegay taas waxay tahay adiga markaan kaa diido mar kale in ay foodayso waad ba iga aamustay sabab ii sheeg maxaa iga qaldan aniga maxaa dhacay qof sida miya aniga may sidaas maaha fiiri balarta sidaan u dhisanahay maxaa ku diido mar kale hadda diyaar mu tahay labadeen baroobo inaan galno maya sidaas kama wadin maba i fahmaysid ba adiga laakiin mar kale maba isku dayinba inay foodayso hadalka baasde gurigaaga waan imaanay waa kana gurigaaga soo ma jeedin gurigaaga gal anigana gurigayga aadan waan ku salaamo guri le kan gurigaaga ma bye guri gurigaaga waa kana tartiib isqabay tartiib nalka maxaa ku dhaca aniga mugdiga waa kacabsanaya yaqi runta haddii aan kuu sheego nimankiina naag garoobe maba rawaanbo waxay u maleeyaan wakhtiga le inay iskaga lumin karaan mar waana mustaqbal inay la samaystaan aniga nimanka da'dayda ahaa way guursadeen ayagoo dhan naaga ayay qabaan booska ma bannaano adigoo kale lee soo haraay amba wax kaa weyn maxaa sameeyaa marka run ahaantii nimanka da'dayda oo kale 3 ilaa 4 carruura u joogta anigana kaliga habeel jooga adiga waaba ku faraxsantaa soomaa naagta aa furtay dhibna ma kuga hayso cid ku caynaysona malahan hadda bal fiiri gabar cabsan ayaad xilligan qolka kula jirtaa ma xishoonaysid miyaa ii sheeg bal maxaa ka samaynaysaa qolkeeda ii sheeg yaa kuu baneeya horta haddaan baxa jaaw maya u kaadi bixin laakiin hal dhib kalaa jiranoo makuu sheegaa dhibkaas maxaa dhib ka jiro adiga mashquulkaaga saa'id wayno waa mashquulsan tahay waxaadna ilowday ma la socotaa maxaa iloway ii sheeg adiga waxaad ilowday maxaa iloway adiga sida aad sideen ahay ii sheegno waxaad ilowday adiga sida aad sidee waa la gacan galay waaba arrin wanaagsan haddii aan caafimaad qabo ahaawe kanna muxuu ahaa sida aad adiga sida aad sidee sida aad انت ماهن سوكا دميسو
kaala balaadi waxaan rabaa inaan ku lama asba aad marka hore aha tartiibtaada خمير أجد خمير يا واد ما صنتها لو عرفت أنا كان فرق أوكي وهذا سنجنا وحلقة روادت كان إنه تشرح له أوه سوري وحير إيران القضية هاي waad mahadsan tahay wax walba ii samaysay waan kaaga mahadcelinaya maxaa dhacay sidaan oo dhan maxaad uga xishoonaysaa xalay waxyaabahan sameeyay aniga loo baahnaa maano inaan kaa xishood hadda waxyaalaas naga joojinoo baryaa run ahaantii qof wanaagsan ayaa tahay sababtoo ah qof sidaad ii caawisay oo kale ii caawi maba jiraba labadeena ka waran kafeedeen soo cabno ha maxaa diiday runta haddeen ka hadla adigu waxaa tahay qof aad iyo aad u qurux badan waad mahadsan tahay heer magaalo ah laakiin waxaan sida ku dhacay ii sheeg sidee maxaa ka hadlaysaa yacni furitaanka aan ku wadaano ninkaaga adiga muxuu kuu furay run ahaantii aniga asaga marxaladda waxaan tagnay ah aniga asaga inaan wejiyadeenaba arki karin laakiin sababta ii sheegno sababta maxaad ka ogaanaysaa wixii dhacay weewa dhaceenba maahan in la soo xasuusto mideeda kale waxyaabaha murugta haddii la soo xasuusto dib ayaa loo noqonayaa soo moogid laakiin waxaad ogaataa dhaawac anaga mana soo raadsado dhaawac anaga ayaa lugaheena ku raadsano anigana dabeecadayga markaan bartay kadib ayaan adiga kula kulmay sidaas soo maha micnaha waad saxan tahay okay aniga arooskayga wuu dhacay farand gedis la'aan soo maha sidaas la iska dheh wax walba intaysan bilaabanin ka hor jaceylka ayaaba dhammaaday soo maha jaceyl duu dhammaada baashaalna uu dhammaaday sidaas la iska dheh way iska dhacaan waa iska caadi run ahaantii wax walba marka hore caadi ayay ku bilowdeen laakiin markii dambe waxaan baraadin jiray marmarsiyo aan asaga uga dhuunto guriga waxaan uga wici jiray dad aanan loo baahnayn si aan wakhtiga uga dhumiyo laakiin aroos kadib sidaas maxay u dhacdaa waa la yaabanahay horta adiga ma ogtahay taas ilaan aniga ilaa iyo hadda ma ogi xilligaan aroosaynana cid noo sheegaysa ma lahan balse arooska kadib lamaano walbo arrintaas ayaa ku dhacda wayna aqbalaan noloshoodana sidaasay ku dhammaystaan adigana arrintaas waa aqbali weysay kadibna go'aan maya sidaas ma ahan yaaqi asaga markuu ay guursanaya wuxuu u malaynaya gabadhuu guursanaya shaqadeeda ilmo dhalowle inay tahay ama sida hooyadiisoo kale raashin inay u kariso walaashiisoo kale inay dharka u dhaqdo ilaa iyo hadda waxaanba fahmi lahay nimanka hindiya joogo sababta ay ugu malayaan dumarka shaqadooda qaabkaas oo keliya inay tahay maxayba ugu malayaan gabadha ay guursanayaan hooyadood camal inay noqonayso aniga aabbahay si xad dhaaf ayaan u jeclahay balse ma rabo ninka aan guursanaya inuu noqdo sida aabbahay oo kale ilaan qofkaa jeceshahay waxaa loo baahan yahay siduu yahay inaad ku qaabisho sidaas darteedaan uga soo tegay hooyadiis ama walaashiis inaan noqdo ma rabin sidaas darteed ayaan iskaga soo furay waad saxan tahay waan saxanahay waad saxan tahay annaga qofka aan jeclaano waxaa loo baahan yahay siduu u yahay inaan ku qaadno ma ahan inaan isku dayno qofkaas inaan beddelno haddii aan beddelno waxaad ogaataa qofkaas inuusan noqonaynin qofka annaga aan jecelnahay ama aan jeclaanay xaqiiqda ayaa ka hadashay laakiin dadkao dhan sidaas ma aaminsano anigana dadka waxay dhahaan ninkaas adiga ayaa ka soo fogaaday adigaana u diida nolosha inaad la qaybsato okay haddaan ku fahmay nolosha adiga waa la qaybsabaysa maho run ahaantii labada qofood markay isjecel yihiin
wax walba waa ay u siman yihiin balse meesha haddii uusan jecel oolin maxaa la ysku dhibayaa taasaan diidanahay aniga xaaskayga sidaadoo kale haddii aan leed aniga ma u furi lahayn waa ku daganaan lahaa okay adiga hadalkaaga waxaan ka fahmay waxaad rabtaa wiil wanaagsan wanaag noocii ayaad ka rabtaa run ahaantii su-aasha hadda weydiisa aad ayay u adag tahay laakiin aniga xaggayga nin wanaagsan waxaa ka ah ninka markii loo baahan yahay wakhti munaasaba inuu go'aan gaaro si fudud ku gaara weliba asagoon dad kale la tashanin waan ka helay run ahaantii waxaan ku weydiinayaa waalidiintaada yaa halkan ka joogo hadda waxaan dhownahay istuudiyaha waalidiinteeda haddaan kula soo kulinsiinaa maya naga dhaaf yaaqay waa meeshaan yaqay wax yar dhool cadayba ismaroojiba hore u soo bax nina cafka suro khataraad tahay faruuryaha kala fur walimade aabe waan ku salaamay qofkan waa kaajal qofkan waa aabahayga kaajal waa ku salaamaya abaa kamirista miya sax leey soo dhawaaw meeshaada waa asmartiyeen adeer waan ku salaamay adeer inaa idhaadid ma laga roono fufu ogol gabadheydii aniga raalli kaaga inaad adeer i tiraado kaajal qofkan aan ku baro waa aabahayga okay waa mahadsantahay waan fahmay kanna waa aabbaha kaasna waa aabbaha soo maaha waad ku saxan tahay waa arrin wanaagsan oo adiga heesaha hindigaa dhegaysataa miya haa maxaa dhacay hindi maxaa ii diiday aniga maba isdhehayninba hees hindi ayuu dhegaystaa ilaan qurbaha ku korta soo ma ogaata igarkeyga markiis ooynay waxaas jecel kishor kumaar heesiis inas dhegaysto waa arrin aad u wanaagsan you are wonderful girl run ahaantii gabar cajiibaa tahay gabar adigoo kale ayaan wiilkeenna u rabnaa laakiin maxay kugu taallaa hadda midkan mid wax fahmaya maahan meel dhegeysa gabartay igarkeyga inas lama adoo yeeshto horta koleyto indii laga ogol yahay maaha laakiin unukaa mar walba lama adoo unaqani ka warange hadda ayaan fahmay aniga dooqiin adinka maba ahayn maho dhibkiina ayaan ahaa hadda ayaan fahmay wax walba ii caddaadeen tartiib wiilkayga inaad carootid looma baahna isdeji wiilka aabiis wuxuu xushmayaa inta uu la nool yahay oo keliya laakiin mar hadduu gabar helo soomaan gabadha xaggeeda ayuu u go'a iyaduu aadayaa okaadiga aniga qoftaan ma guursado ee biyo ayaan guursan rabaa biya waa gabar aad u wanaagsan idinkana inaad la kulantaan ayaa loo baahan yahay I'm not fahming this sheekadan bad iga taataabta xoogaa yarko aan fahmay yaa khayrtiis wax mimaan biya waa saaxiibadeeda kadibna kaaje ayaan kulannay saddexdeedna waa wada joognaa maxaad wax weyn ugu dhigaysaan saddex jecelay waa egtaa sheekadan ani waa ka baxaya sheekada bis waa adil la sheekaysaa jay naga dhaafiyaa waxyaabahan aad samaynayso ciyaar ma u malaysaa sore ma lagu dhiino igaarka adoogiis inaad fahma ma laga yaabo laakiin gabarta adoogad waa fahme adna saasaan malaynaa inaad tahay mayno anigoo idinla jooga ayaan basaa'id idinkuugu xiisa xaggeed aadeen gabadheydii anigaba sidoo kale waa aan kuu xiisi doonaa waxayba iga heesaaba inaan adiga dhan kaa dhigto gabar aniga aan dhalo aad meeshan igula noolaato gabadheydii tartiib hadda sheekadii ma dhamaysteen anaga waxaa la gaaray xilliga aan iska ilmaan ninkan warkiisa xilli walbaad u baahanta you can come this gurigan taas inaad ii sheegto lama baahna mar walbaan idin imaanaya always you welcome waa lagu soo dhaweynaya iga support horta biya yaa waa iga dabageeba ama ifahamsiisada waxay ukaadiya waa tana biya ay soo ciso soo bax jay raashinka xataa marmaysa ukaadi yaqay macsalaameya waa idin xiisi doonaa bye bye wiilkayga iska taxadiriya muxuu samaynayaa kan yaa okay bye halo biya haa kaajal haddaan saddexdeena maanta wada qadayna ka waran waayahay dabcan maxaa diiday jey waxyaabaha samays aad ayay u qaldan yihiin maxaa qaldan sameeyey biya maxaad ugu sheegi weysa labadeena inaan isla joogno qasab miya biya wax walba inaan u sheego inaad u sheegtaa ayay ahayd waxyaabahan yaryar oo la iska qarinayo ayuu xiriirka ku burbura dagaalkana ku bilowdaa okay sababta aan ugu sheegi waayo waxyaalan yaryar adiga inaad ogaatid maxay tahay diyaar muu tahay ma jeceshahay maanta inaad ogaatid ii sheegeena waa ku baryaa arrinta ugu muhiimsan aan kuu sheegaya wax kale maahan markaad adiga isoo wacaysay kaajal aniga ayay il joogta ka warranaya okay runtaa miyaana waxay la tahay waxay kugu imaaday inay habeen hore garabka aad siisay ay kaaga mahad celiso soo sax maaha hadalkayga ahay kaajal beemaan sheegay biya musqushina aadaar waa miraacaysaa waa arrin wanaagsan yakhay taas xaq maahan dumarkiina keligiina maxaad isku raacdaan ninka ragactaa
waxaa loo baahan yahay inaad kaxaystaan wax walbaad ka sheekaysanaysaan asigana inuu ogaado ma xishoonaysid miya naga dhaaf yaaqay waxyaabaan soo bax biyaa yaaqay dooda musqushle maxay u galaan inaan reerkiisa la kulma iska daaya xitaa inuu reer lahaa aniga maanan ogayn labadiina hadda bal fiiriya wakhtiga wuu idin saaciday jaanisaa isku haysatiin waa wada sheekaysataan laakiin aniga wax jaanis uu ii haay haba yaraatee ma jirto sheeko uu ii sheekeeyey iska daaya jaaniskiiba baqiil ka yaha xaggiisa adiga siduu jaaniskuugu helay teeda kale adiga saaxiibka ayuu noqday aniga laakiin saaxiibkay ma noqon xiriirkana si wanaagsan wuu u socday laakiin aniga waxaan rabaa qofka mustaqbalka aan la wadaagayo inaan ka dhigto qof saaxiibkay wax weliba aan u sheegto dacwadaad isku haystaan waa xaynaa iga raali noqo dhegeysa gabadheeda noloshu waa 2 maalin qofka intaada haysatid ayaad laga faa'iistaa waxaa loo baahan yahay qofka aad la noolaanayso inta kula joogo inaad farxad la qaadatid idinkana looma baahna nolosha inaad eedaysaan qofkaad jecleed hadduu kaa tago maaha noloshaada inaad dib u dhigtid ee hore u wado nolol farxadna waa inaad samaystid adinka ma qiyaasi kartiin aniga gaajo xunayaysaan ku dhahay jey maalmahan waxaan ku fikiraya in aan ku dhaho maxaa waay asxaabay waan idinka sii tagayaa macsalaan may waa ku baryaa waxir joog inaan wax u sheegaa rabaa horta waan ka xumaa xiriirkeena ma sii socon karo habeenkaas haddii anigaadi raaci lahayd misna aad iga taxadir leed wax kasta okay ayay noqon lahayn laakiin mayse dhicin kamana masiirsani kaajal gurigeeda in aad u raacdo caawiso laakiin waxaan ka masiirsanaa aniga wax dareen inaadna ii haynin adiga aniga kuma dhahay kaajal ayaad jeceshahay laakiin waxaan ogaadaa aniga inaadna i jecleen adiga tan dhaawaca maharaanka igu reebtana waa taas biya adiga sidan maxaad u leedahay aniga adiga hadda ka hor dagaal mana dhex marin mana isku buuqin marka sheekadan xaggeed keentay ii sheeg ilaa hadda ma fahmine jey arrintaas aad sheegaysa meesha ma taallo 2 qof markay ismurmaan waa 2 qof oo isle laakiin labadeenna isma lihin weliganna isma buuqin waa runtaa dhibaatadana waxaa keena aragtida ugu horraysan aniga kugu jeclaaday waxaan ii caddaatay noloshaada adiga il jecel inaad hal mar aadna igu soo fiirinin jey iga raadina noqda hay jey is ogowhe yaaqay wanaagga xumaan muxuu isku bedelaa mar walba mise annagaaba xun sheekadan ilaa hadda ma u fahmaynba runta haddii aan ka hadlo dhibaatadana haysato waxay tahay annaga oo rabno xagga sare inaan aadno ayay nolosha meel hoose noo wadaysaa balse markii dambe waxaan ogaanaynaa meeshaas hoose ay nolosha noo waday meel wanaagsan inay tahay balse waddadaas ayaa ah meel hoos ka bilaabanayso taasaana keenta annaga runta inaan dhaqsi ogaanin aniga maanta waxaan ku faraxsanahay su'aal baan isweydiino jawaabteeda inaan is siino halo yaaqay aniga ma fiicni maxaa dhacay yaaqay aniga waxaan la yaabanahay qofta aan jeclaa miyaan u xiisay mise qofta aanad joogay ayaan u xiisay ilaa had waa kala saar la'ah dhibkii haysta muxuu yahay adiga waa hurdi la'daa miya waan hurdi la'ah adigane aniga maxaan hurdi weynayaa waad saxan tahay su'aalahan qaldan adiga inaan ku weydiiye maba ahaan ilaan adiga waxba kuma soo gaaran dhibka anigii u haystaa soo maahan aniga la iisoo ooy waayahay isdeji inaad hurdo isku day haddii aad hurdi weyso mar labaad igu soo celi dhib ma lahan okay thank you bye bye
هاي doqonyow hadda hayla hadlin markay hurdo kaa soo dhici weysa ila soo hadal laakiin hurdo dhamma yaayse maxaan sameeyaa iga aamus habeen wanaagsan yaa aniga maa khaldan adile miliina hurdo aweydo masjid ii soo qor aniga hadda masjidlan kuu soo qora wax khaldamiyaan sameeyey aniga ma wajecliba fariin inaan ku sheekaysto kuma fiicnino qoraalka hallo maxaa dhacay kaal adiga qoraalka dhibka haysta maxaa waaye ii sheeg inaan fahma ayaan rabaa war dhibka iga haysta midaan kuu sharaxi kara maan sababtoo waa dhib aad u weyn ilaan maalmahan maba la isticmaalo qoraal soo mahan waagi hore fariin ayaa laysku diri jiray oo warqadaa laysku qori jiray laakiin hadda waxaas waa ay dhammaadeen weligeed fariin maba la ii soo dirinba oo warqad ku qoran sheekada hadda ayaan dareema waxaad rabtaa fariin in boos lagu soo diro boosta kaarna lagu soo diro kadibna baaskiil lagugu keena war iga aamus yaaqay dhallinyaradiinan sanadkan waaba ku ciyaarteenba jaceylka ilaan waxyaabo aan loo baahnayn ayaad samaynaysaan taleefonkaa fariimo iskugu diraysaan xataa wax layskuma geynayo ee uwaxa meesha ku jiro beebeenta ayaa laysku diraya sidaasaa dareen layskugu sheegtaa lagu leeyahay ninkan maba yaqaano naagtiisa farta siday u qorto maba aqoonsan kar ilaan 24 sac taleefonka ayay ku wada sheekaysanayaan jecel miyaa waxaas okay haddii sidaas ay tahay warqad ayaan kuu soo qorayaa kadibna bakshad ayaan dhexgelinaa kadibna istaamba ayaan kugu soo dejinayaa adigana waa laguu keenaa weliba adigoo gurigaaga joogo laakiin waa ku barya hal mar leh meesha kasoo tagnaa adiga ilaa hadda waxaan la yaabanahay laban daayad adiga maxaa ka qabanay iska soo baxno waan ka xumahay waxaan kaaga sheekaynaya murugadeyda balse waxaad ogaataa mar walba saaxiibadda oo adiga garabkaaga taagan inaan ahay ogow middaas maxaa dhacay adi mar waxaa ku fikirtaa labadeena saaxiibba oo keliya inaan ahay laakiin aniga wax kale ayaan u baahanahay iweydii marka hore war iga aamus okay bye may haddamin telefoonka maadaama aad waa tookadaada teedaan ka hadlaa run ahaantii aniga ma sheegi karo sababta laakiin ka gudub labadeena saaxiib ayaan noqonay aniga sidaasaan qiyaasaya aniga xataa waan ka helay aadaa u mahadsan tahay teeda kale mala socotaa adiga inaad tahay gabadha u qurux badan aniga aan la kulmay hana ka fikirin hurdadeeda waan hurdaya okay waayahay ammaan ayaan u qaadanayaa arrintan inay tahay okay waxaan rabaa inaan kuu sheego may u kaadi waxaa laga yaabaa arrintaas inay dood ka bilaabato doodaasoon weligeed aanan dhammaan marka macsalaamaan ku dhila bye habeen wanaagsan bye habeen wanaagsan marka hore iyo af istoosinga intaan ka badan miyaan isdiyaarinaa fiir sheekadan dhabta inaa ka dhigtiin la rabaa kaftankan oo meel iska dhigtiin may kastaan aniga waxaan rabaa xiriirkan inaan si wanaagsan oo qurux badan aan u fahmo adiga kaajal maalmahan waa isu soo dhawaanaysaan oo waa isfahansantihiin soo maahan qoftaas waa ka heshi maayna garkee hadda waan dareemaa labadiina wax maya waxaas miyaad kula talinaysaa inuu sameeyo naga amsiaqaade teeda kale runta haddii aan kuu sheego gabadhan aad iyo aad ayaan ugu kalsoonahay wax walboo niyaddeeda ku jirana inaan u sheegto ayaan diyaar u ahay gabadh noocaan oo kalen weligeed mala kulmin oo micnahaaga gabadhaas waxaanan annaga ku dhihi karin miya adiga ku dhihi kartaana sababta iyada makaanla joogo ragga way dareentaa iyada makaala joogtana aniga dumarka waan dareemaa dareen noocaas ayaa labadeena naga dhexeeya marka dareen cajiib ah oo hadda waxaanba sheekadaa u fahme gabadhaas sirtaadoo dhan ina faraha u gelis mayno maxaa yeelay hadda gabadhaas waa saaxiibadeeda ma aniga jeceyl u bandhiginayo waa may soo waaw wixii aan kaa rabnay hadda ayaad samaynaysaa wiilkayga meesha anigaa joogo qof isoo fiirinaysa ma jirta miya xaqaagu dood saasaa lagaa rabaa jey na wax isku daydad ma barabtid miya okay haddaan isku daya waxaan u kaadaya qoftaan way carab dheertahay aniga siday ila tahay qofkan wax baa u qarsoon maya wax u qarsoon ma lahan waxay ila tahay gabar kale aniga ila tahay wiilkan gabar ayuu ka helay oo aad iyo aad ayuu u jecel yahay kabacdina wiilka haddii uu gabar jeclaado waxay danta ku qasbaysaa waxay gabadhaas jeceshoo dhan inuu jeclaado micnahayga everything waa inuu ku qaataa adiga waad og tahay markii hore aan aniga xabaddeydaan isbaranaynay rafaad iyo silic fara badan ayaynu soo marnay ugu dambaynna waad ogaed xaaladda markay xumaatay in jacaylka gadaal ayuu ka yimid isfahankana
waqti dambe ayuu soo dhacaa marka isfahanka waa u dambeeya adigaa ku mashquulin oo keliya bay bay beentaada maan isfahamka gadaalaska imaaday qoftaadana waa saystin laakiin hadda iga oo sheekadiin waaba ku caadsan oo kala wada waan ku salaam maama qaali haay gabadheeda muuqaalada aad iga soo wacayso lacag soo lagama jarana mise waa free maya waa free waaye haddii uu muuqaalka free yahay wicitaanka caadiga maxaa lacag saa'id lagaaga goosanaa midaasaan ku weydiiyey gabadheyda maxaad warka ugu laalaabaysaa runta ma u sheegtid wixii jirna aad u caddaysid ii sheega bal maxaa jiro gabadheedii waxaan rabay inaan kuu sheego qof saaxiibtay ayaa jirta wiilkeeda naagtoo qaba wuu ka dhintay marka ka waranba haddii aan kugu baleemiyo waxaana hubaa qofkaas haddii aad heshay gabadheeda farxad inaad ku noolaanayso waan ka hubaya aamin warkaan maahan warkii kale ma u sheegtid maxaa waa ahe sug bal adi sheekada haddaan rabaa inaan u bilaabe ninkaaga hore naa kale ayuu gursaday asaga mar labaad miyuu guursadayna weliba sidaan dhaqsida ahaa saas darteedaba kuu leeyahay nin kale waa inaad gursataa sababtoo ah waxaa taa inaad tusta ayaa rabaa ninkaas xun isaga wuu guursaday hooyo tartan maahan in qof la guursado soo lama socdid gabadhayda caadi matiido haa waan fiicanahay wax yar kadib ayaan idin soo wacaya okay bye halo kii wuu aroosi rabaa je waan ka xumaa xilligan inaan ku dambisile laakiin aniga aadan murugsanaa baxtiishka ii soo qabo okay hadda nigaa kuu keenay laakiin marka hore ii sheeg maxaad la murugsan tahay dhibku haysto waa maxay ani xataa moogi sababtaan u oynayo waxay tahay dhib ma lahan indhaha ku sbeesmaya jey adiga mala socotaane familkayga ma uu sheeg murugteeda waxay tahay mar walba waxaan iska dhiga qof faraxsan inaanaa ilaan waxaan diidanaa familka inay ila murgaan mar walba waxaan ka taliya reerkayga maslaxadooda dadkana muu sheega dhibaatadeeda waxa ay tahay waan iska aamusaa waana qarsadaa waan ka xumahay dhibkaan muu dulqaadan karaa aniga okay dhib ma lahan ee waxaad ii sheegtaa asiga ma jeclaan lahayd inaad soo ceshtid ii sheeg waa ku baryaa ayaad ka hadlayso ekiskaagana ninka adigu ku qabay warnaga dhaafnoo jee maya sidaan dhan kaaga oysii adigaba gabar kaa yar ayaad xiriir la samayso soo maahan haa laakiin qoftaas aniga way iga fogaad soo maa haddana murugi ma hayso bal ka baran furiinkan 6 bilood ayaa ka soo wareegatay asagana waa uu guursanayaa dhib malaha naagtaas koley wax badan isma qabi doonaan wuxuu ku xujayn doonaa hooyadeeda waxay qabato qabo walaasheeda dharkay xirato kale waa inaad xirataa aniga ribkay haysta muxuu yahay ma waa aqaanaba waxaan murugsana may adiga waxba kaa maqaldano may waayahe qof dhib badan miyaana aniga may adiga xataa qof taalenta leh may wadda qaldanaa ku socdaa umaleyna may adiga wadda qaldan kuma socdo wadda saxan ayaad ku socotaa waayahe qof maxaanu heli lahay goorma sababtoo ah ninkaa kala tegna waa hadda wuu guursanaya soomaan aniga maxaa ii diiday inaan guursado oo nolol cusubna aan samaysto waxaan sameeya maaqaaniqay sitiishka raggiina arrintan inaad fahantaan maba laga yaabo sababtoo ah idinkoo 70 sano jiro haddii aad guursataan xataa ilma ayaad dhalaysaan laakiin aniga wey laakiin waxaad ogaataa uurkaas uur caadi maahan bacrimis way yaaqi adigane waxyaalana macin lehenad ka murgaysaa laakiin ooyinta soo maaha aad iyo aad baad ugu qurux badan tahay caadi ma tihi naga dhaafno ciyaar migaha waa iga dhab aniga haddii aan kumaa lehen adiga ma aamusaleen soo maaha beenaad sheegaysaa si haddii aamusta ayaa waxyaabahan iigu dhehaysa
okay am sinda haddii aan rabo sidaan maana laabta waa inaan ku geliyaa gaale laabtida soo gal igraali noqo finaanadaada dhan wada diifaanka dhiga yaqay dhib ma lahan adigle waa ku baryaa ii aamus okay aamusnaanta igu kalmee फिर से 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 रोजाना तुम हो खबर ऐसी पढ़ता हूँ जिसको मैं अखबार के जैसे रोजाना तेरे नाम से अक्सर पन्ने सजाता हूँ दिन बात बस यूं ही रोजाना मेरा वक्त तुम्हें बिन देखे ना कटे और देखूं तो नजरें ये ना हटे तेरे नाम से अक्सर पन्ने सजाती हूँ बिन बात बस यूं ही रोजाना सा बनता जा रहा लोग कहते मैं बिगड़ता जा रहा ख्वाब तेरे देखती हूँ रात दिन तू मेरी पलकों पे चलता जा रहा मुझे रंग तेरे बस पक्के लगते हैं बाकी सब रिश्ते कच्चे लगते हैं तुम हो खबर ऐसी पढ़ता हूँ जिसको मैं अखबार के जैसे रोजाना जो मेरे वो हालात हो ओढ़ना चाहूं जिसे वो रात हो जैसे कॉफी की ये लत छूटे नहीं बिन तेरे ये दिन मेरे बीते नहीं तेरे दर्द भी मुझको मीठे लगते हैं और दुनिया के गम झूठे लगते हैं तुम हो सफर ऐसा जिस पे निकलता हूँ मैं नींद में अक्सर रोजाना तुम हो गुनाह ऐसा जिस जान करके मैं बस कर ही देता हूँ रोजाना adiga sidaana u hurdaamaya marka hore si tartiib tartiib ah ayaa hurdada iskaga raadinaysaa kadibna
si toosaad u hurdaysa anigana sidaasoo kalean kuu jeclaaday marka hore si tartiib tartiib ah kadibna si toosoo iila tegay jaceylkaaga hadda lewa culays isoo saartay culays ma idhahda ahaa maadaama ay dhahdo waa ku jeclahay waa inaan jawaab ku bixiyaa waa ku jeclahay jawaabteedana waxa waaye waa ku jeclahay oo keliya anigana sidoo kale inaan ku dhaho waayahay dhaheenoo tookadaada waaye xooga aan fikira fursad sii oh no waa la gacan gala hooyo aabba waaye maxaan sameeyaa war taleefonka iga soo wacayaan guriga ma joogaan kaadibal waan idin salaama dhammaantiin gabadheeda sooma fiicnid timahaaga fiiri rafraf camal waaybe maya hooyaqay waa iska caadi bal fiiri indhaheeda waxaa moodaa xalay oo dhan inay soo jeeday war adiga mar walba maku fahansiinaa hadda habeenay joogaan 7 saac barna waaye weli ma aysan jiifan soo ma aragtid 7 saac bar oo habeenima haa 7 saac bar waa 7 saac bar saacadan gabadhan maxay raashin ii siisay oo gabadheeda waxay ila tahay waxyaabo badan noloshaada inay iska bedeleen bal gadaashaada fiiri hal mar waa ku salaamay hooyo micniga kaajil hooyadeed adeer adigana sidoo kale waa ku salaamay sweetie adigana waa ku salaamaya adiga kuma tahay aniga waxaan ahay jay waad mahadsan tahay maadaama aad nala hadlayso maxaan kuu samaynaa wiilkayga runta haddii aadan sheego aniga waxaan rabaa gabadhiina inaan guursado wayna fiicnaanad adinka haddii aad halkan timaadaan arooska ayaan ka wada hadlayn kadibna arooska ayaan diyaari lahayn war adiga iyaa ku dhahay reerkayga waxyaabahaas u sheeg maxaa dhacay gurigayga diyaar umtiid miya guurkaaga ma waxaad iigu soo bandhigaysaa reerkayga hortooda anigaba ima dhihin hadalkaas waad saxan tahay waxaadna ku saxan tahay aniga jaceylkayga ilaa hadda kuma soo bandhiganin xataa qorshe ma sameynin oo jaceylkayga aan ku soo bandhigto adiga daqiiqada kor waxaad weydiisay ma ii jeceshahay jawaabta ma kuu sheegaa waa sidaad adiga hore u sheegtay jaceylka tartiib tartiib ayuu u bilaawday kadibna jaceylkaas wuu igu saqa kaajel diyaar mu tahay wax walbaad adiga leedahay aniga inaan kula qaybsado gabadha maba jawaab hoosaysa wax jiraan asxaan samey afkaada leh mar iga ar hooyadaada maqlayno haa ayay kaa sugaysaa aniga idinku soo celinaya yes no waa laga yaabaa waa inaa isdejiyaa baby soo kee matid jay waxaan u malaynaa arrintaa inaan ku fududaano marka waa inaan fikiraa marka hore waqtigaan ku fikiraysay okay fikirno yaaqi aniga daacada iga tahayno adiga hadda arrintan aaday kuula wanaagsan tahay ilaan familka ayaad dhexgelaysaa soo maahan laakiin arrinta sidaas maahan waa ay ka duwan tahay labadeenna nolol wadaagi rabno laakiin aniga waxaa maqlay labada qofood markay xiriir rabaan xiriirkaas wuxuu ku dhismaa labada famil inay kulmaan jay adiga su'aal walba jawaab ayaad bahaysaa miya lagu qasban yahay yaaqi arrintan inaa fahantay isku day ilaan waan la socotaa mar dhow ayuu furiinkayga dhacay marabo mar labaad inaan furiin iyo waxyaabahaas la kulmo waa inaan ka fikiraa marka maraba degdeg okay haddii ay sidaas tahay isma guursanayno wada noolaasho ayaan ku wada war taas macquul maahan familkayga ayaa kabayga siinaya marka ma samaynayo taas waayay hadda ma isguursanaa maya jee iga dhaaf okay maxaan samaynaya ii sheega waa wareeray anige maxaan samaynaynaa mataqaanaa labadan waan wada hadlaynaa xagga fadhiisa adiga anigana meel dheeranka istaaga meeshaanan istaagaya waan wada hadlaynaa oo keliya wax kale ma samaynayo okay we just talk only labadeena waan isguursanaynaa markaan isguursano kadibna adiga shaqadaada waad aadi kartaa fasax ayaad u tahay naxariis badanaa yarka aniga ma u malaynayninba arooska kadib aniga fasaxaaga inaan u baahanahay laakiin sheekadan aniga kama helin teeda kale waxaad ogaataa guur kadib aniga ma kugu xijeynayo waa inaad noqotaa sida aabbahay oo kale 2 daqiiqa isiyaan ku dhahay arrintan waa ka soo fikiraya okay diyaaraan ahay ka soo fikir maxay dhahday ka soo fikiraan ku dhahay ma fahminba okay aniga sheekadan ma rabo inaan kuu sheego war naga dhaafno ciyaar inaad ka dhigata ayaad rabtaa arrintan may aniga ciyaar kama dhiganaa hadda labadeena isma aanan guursanin haddana waxaan u dhaqmaynaa sida loo qofood isguursadoo kale haddii aan isguursano labadeena maxaa naga dhex dhici kara ii sheeg sheekadaas ayaan fahmila ilaa hadda guurkeeda ma dhicin buuq ayaan bilaabnay iyo dood maxaa way sidaan
ya aniga koley waxay ugu ballanah inaan kuu noqon doono nin aad iyo aad u wanaagsan adigana farxad geliya ballan ayaad iga qaadaysaa ballantaas micnaheed ma fahansan tahay horta adiga qaadid maba xume koley aniga ballanta micnaheeda ma fahansan laakiin waxaan ogahay ballanta inaan ka soo bixi doono waxaana ka soo bixi karo qofka jecelhaya micnaheeda waxaan ku wadaa sida anigoo kale aniga waxaan ogahay aroos ka hor dadka inay cabsadaan taasi waxaa sii dheer dadka arooska soo maray inay cabsi badan yihiin haddana waxaan dareemaha adiga inaad cabsanaysid runta haddii aan kuu sheegana aniga xataa waan cabsanayaa laakiin cabsida meel marka la dhigo hal mid ayaan kuu qaban karaa taasna wax kale maahan gacantaada inaan qabsado mar walbana garabkaaga aan ahaado haa maad tidhaahde okay aniga haa waxaanu fahmi karaa adiga diyaar noo tahay inaan ku guursado haye okay laakiin xoogaa waxaan dareemayaa anaga go'aankan inaan ku degdegnay ma loo baahnayn sidaan noo fududaano run ahaantii arrintan xaqiiqadeeda cid sheegi kartaa way raatee ma lahan arrintaanna waxaa la ogaanayaa waddada guurka markii la qaado kadib waddadaas wax walba ha iga horeeyaan balse waxaan rajaynayaa adiga mar walba garabkayga inaad taagnaato yes aniga hore ayaan kuugu sheegay wax weyn uma baahni waxaan u baahanahay qof inuu garabkayga mar walba taagnaado yes yes maxaan u qaataa marka inaad mar walba garabkayga istaagaysaa yes waxaad u qaataa mar walba aniga garabkaaga inaan taaganahay ma laga yaabo inaan ku cidleeyo marka anaga go'aan waxaan ku gaaran inaan isguursano Oh my God! Wow, that is wonderful. wanaagsan ayaad qaadatay. Kana laabtii geli waan kaaga hambaliyanayaa. Go'aanka ugu fiican abid hadda ayaad qaadatay. Gabadheedii aad iyo aad mahadsantahay adigana hambaliyaan ku leeyahay. Ya, warayda maxaa kugu dhacday? Oh intaana maxay tahay? Maya yaa khay markii wareys way garkay. استلام في عن خالي همبليان كنا يقركي markuu wareysa absolutely fantastic ina fariisiyo marka arintaas sameeysan waa arin aad iyo aad u wanaagsan anigana farxadda maanta aan haysto horay mid ii soo martay ma waxaan ku qiyaasi karnaa habeeratay ma jirto wiilkayga jay in maadaama aad adiga gacanta ku dhigto aad ku maasantahay gabadheedii naga daahay caadi tartiib horta si fiican oo la socotina oo maleena dhaqanka meeshan yaal iyo dhaqanka indiyaal inas kala duwan marka waxaan qasbana airportka inan aadna aan reerka soo dhaweyna saas ma absolutely waan israacayna waa soo dhaweynaa meeshana wada keenina wax weyn ma ahan ha waalidiinteeda waxay sugayaan sodog iyo sodo in ay la kulmaan macnaha dadkay xididka la noqon lahaayeen arrintan waxaan jeclahay si wajika wajiga inaan waalidiinteeda ugu sheego wax walbana aan kala dabaro gabartay mid aan ku weydiiyo unuka maana diyaarine mase ii kaa soo diyaarine tartiib way imaadeen ya maxay hawada jismiya may jiis ma ahan laakiin way baashaalaysaa maadaama dibadda soo aaday gabadhayda kaale macantadeeda hooyo macaan gabadhay see tahayna fiicana hooyo aabo fiicana aabo abaayo ducaysantaa intee ka barata waxyaabahan googlahano
oksalaam sweetie waa kaa qaadeen run ahaantii wiilkan wiil khatar waayaa ku dhaa looma gali karo hadda ma socna ugu dambeynta gabadheeda waad guursata soo maha hooyo adigana waxaad doonta ma iskaga hadlaysaa aabaha kanuu ii soo iibiyey waa beela dareebal moo leh miyaa ninkan meeshaan qofka baabuurka asaa wato ani waxaas dhahay dareebal qaasoo leeya oo weliba khatar ah weliba 4 gaari ii dheer baabuurtaada noocyadee waay hooyo yaaqay gabadheedu waa iska kaftamaaye mashquulka ma laga rabnaa maan soconno hay maxaa dhacana arooska sidii daa dhaqankan looma dhigaayo miya waxay dharkana soo xirata walaal marka la isguursanayo dhar kale ayaa la xirtaa maxay tahay dharkan caddaanka oo la xiranayo arooska 2 nooca loo dhigaayo midna hiday dhaqan midna noocan sida hiday dhaqanka loo dhigaa ma dhahde waaye aawo ruudi cilaan saarki dharka arooska intaasba uma jeedo marka beenta hooyo waan ku baryaa naga dhaafno innaba caadi ma tid gabadhayda gabadhaydii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay mar lamaad weliba adoo guursanaya hala guursada ceeb ma ahine aawahe guurka alaabta aan ku naqaane tan guurka ma tilmaami karno waaw ya jay yaqi caadi ma naga dhaafno waa idin salaam dhammaantiina sidatiin jay halkan maxaa ka soo doontay aan lama filaan ayaan ku waday waxaan rabay dhammaanteena maanta inaan wada qadeenahay maxaad ka leedihiin beelo dharka arooska in lagu arko ma fiicna gabadha intuusan arooska dhicin ka hor really kaale dhaqanka cusub xaggee keenteen taas waa dhaqankeena okaade adiga sababtoo ah annaga dhaqankeena kuma jirto guurka ka hor wiilka inuu gabadha la kulmo naga dhaafee gacaliso mar wala biskaaga diyaar waaye orod dharkaada diyaar waaye qofkan madaxooba iga gale kaale habarta mar walba hadalka maxay ugu xumaysaa sababtoo adiga ayaa hidaha iyo dhaqankeena ku ciyaarayo micnahayga waadba fahmi la'daa waxa uu yahay sidaas darteed okay hadda waxaas ka gudub laakiin maanta runta haddii aan kuu sheego inaba caado ma tihid aad baad u qurux badan tahay kaale iska aragaa tahay war ka joog maxaa samaynaysaana reerkayga ayaa halkan joogo haddii ay joogaanna ceeb waa inu hortooda waxyaabahan inaan ku samayno laakiin adiga maxaan kuugu sheegaya waxyaaba ma u fahmaysida ilaan qof dumar gurigiina ma joogto yaqi jay iga raalnoqo waan ka xumahay ma rabin inaan sidaas ku dhaho marna kuma fikirin dhar noocan oo kale inaan xiran doono waan ka xumahay inaan u sheegay ayaan rabay laakiin jaanisan ugu sheegay ilaa iyo hadda ma aanan helin waxaan ka fikirayaa qaabka aan labadaad aabo la kulansiiyo aniga waan dareensanahay adiga waxaad dib u aragtaa familkayga iyo familkaaga maya sidaas maahan jey inaad ifaantay isku day waa la yaab adiga waxba ii sheegeen ayaan ogaaday waxa niyadaada ku jiro wax walban aniga waan dareemi karaa ilaan dumar gurigeena ma joogaan soo sax ma hadalkayga jey okay waan baxay aniga mac salaama adin dhilaa maxaa ku dhacay asaga xataa dhar ayaa lagu cabir rabaa taleefon ayaana loo soo dira hadda taleefonka markuu soo dhacay maxaan maqli weyne waxa macquula silent inuu saarnaa aabo 500 baan waaye qaal waaye iska sib war casri waaye iga leexo xilli aroosaa lagu jiraa waxaan in la qaato looma baana anigaba ma rabi laakiin waan isku fiirinayo keliya ay se qurax badana lagu naashnaashayaan ku dhahay kaaliska arag mininko meelaan ku yalaha kaalisiga gobol yaraka dhiban aan ku dhammaystiro okay way kana beelo absolutely wiilka waa kana wuxuu ku soo baxay qurux low igu dilata waa kaasanta waa maasanta adina iska baxay maasan waa dhamaad horta fiiri igarkayga si lagu labis waxa laga rabaa labis maahane xogaa naashnaash yara u dhiman ku dar yaakh maya of course waxa walba okay waa dhamaatay bas sidiisaan ku kaxaynaynaa sidiis in lagu kaxeeyo way sababtoo ah dhaqankii hidaha inaan ilaalinana dhaqankii hidaha waay wadwad sawd run ahaantii aadaad u mahadsantihiin anigana si xad dhaaf adinaan jeclahay wax walba ayaad ii qabataan horta yarkay xaaladaha okay ma tahay dhib ama jira ii sheeg maya dhib ma jiro iga dhaaf yaaqay kule wejigaaga waxaan ka dareemayaa inaad noo sheegtida kuu roon ilaan dhibkaaga dhibkeenna waay waalidiintaadaan nahay waran he koley kaajal faamilkeeda markaad la kulantaan wax walba okay ay noqon doonaan isdejiye marka waa siduu adiga aabbaha kuu sheegay dhibka adiga aad tabanayso dhanna soomaan waa la xallinayaa annagaa xal u keenayna walwalka faraha badan iska daa hawsha dhegdheg bay noqonaysaa okay waad ku mahadsantihiin hay igarkay tartiibtaada ya saaxiibkayga maakiyo
dhibka dhan xaggeenasba ka jiraa ka warangaya horta adiga ma la socotaana xiriirada waa sida xiriga cangirigoo kale haye waa sheeko cusub hore uma maqlin run ahaantii dadka waxay isku dayayaan xarigaas inay jiidaan xarigaas marka jiiditaanka laga badiyana wuu go'ayaa si kastoo la jiido booskiisa waa in lagu soo waa celiyaa saxan tahay hadda ayaad fahantay xiriirka micnihiisa haa laakiin xarig haddii zaa'id loo xiro robot xataa ma furi karo soo mogid markaan soo bixinaa idin dhahay alaabo fara badan waa inaad soo qaadataan balse idinka waad iga diideen madax adeegana waxyaabaan maxaa waaye waa maalinta ugu horreysa soo maha oo wiilka reerkiisa aan la kulmeyno alaabo badanaa soo qaadna marka waxaan rajaynaa inuu ka heli doono beelo soo waa beelo alaabta kalena tusi sidoo kale saarigan waxaa u talagalay wiilka hooyadiis inay xidhato soo beel maha gabadheeda idinkoo dhan waxaan rabaa hal arrin inaan idiin sheego noo sheeg familka jey famil iska caadiya maahan asagana waa ay korsadeen macnaha xiro ayay ka soo wateen run ahaantii labadiina oo kale lamaano normala ma ahan dadkaas waa suuragal macnahayga reerkaas reer midaysan waaye ayaan ka wadaa reer midaysan way dhahdeen beela waay soo uma jeed gabadheeda annagaba reer midaysan inaan nahay hooyo maya hooyo sidaas kama wado reer midaysan macnaheeda waxa waaye labada nin ayaa ku heshiiyey inay wiilka koriyaan shidaante taas micnaheeda waxay tahay wiilka hooyo ma lahayn labadoodaa ku heshiiyey inay isla korsadaan soo maaha saas la iska dheh caafimaadkaada soo ma fiicna maya waa fiicna xoogaa laakiin waa arrin laga murugoodo hooyo la'aanta ma fiicno murugo maahan hooyo waa murugo waa wax iska caadi ah waa ka naxay naga dhaaf hooyo haddana waa ku farxsan yahay soo maaha hooyo waxaan u malaynaa inay imaadeen waa idin barya caadi iska dhigaya hooyo adigna tartiib fadhiiso naga aruuriya naqsi abay alaabtaa naga totoosi hay maxaa waaya kursigan xaggee la wada sidee wax u jiraan yaaqay waxa la ifaansiiyo ciidahan ka soo qaadani sababtoo ah kuraas fara badan annaga ma qabno marti fara badanna way imaanaysaa sababtoo aroos ayaan qabnaa wad aroos ka hadlaysid anaga kan qaadlana leh intaana keenay maxaa dhahay okay waa maasan tahay iska baxle mar aaba waxaan tawal way ka weyn yihiin waa soo gada soo maahan kuraastan waa qaali discounti boqolkiiba 60 la soo sameynaayo beentaa waay hooyo boqolkiiba 80 xataa ma laydinkaga gadanayo gabadhayda maxaa ku hadlaysaa waa ujeeddaa soo qurux badan yahay aniga ma way cajibinin ka waranhe waa la gacan kale way imaadeen u maleynaa dhaqsida alaabtan kale toosiye anaa ka soo furay albaabkii qabaha adiga si fiican haye soo jiite si soo jiid dhaqso haye soo dhawaadahe guriga waa gurigiina hooyo aabba iska barta hooyo aabba idinkana iska barta michael iyo krishaal kala waa kaa qaaday anigana waa ku salaamay waa kaa qaaday alkrishnaal idhaagaawey salaamba waa kaa qaaday salaantana intaas leen ugu ekeeyaa looma baahna wax kale idinka hor ali fariista bal soo socday soo dhawaada maxaad taagantiin adigana fariista waa dhamaataa hay qoftan waa walaashayga yar ka qaadiga horte tartiibta waa salaamantahay waan ku faraxsanahay maadaama wiilka si wanaagsan aad soo karseen waxay ka wadaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay aragtidiina aad iyo aaday ugu faraxsan tahay haye hadiyad yareed inaan siinaa rabnaaye bal yaa waa u geynahayaa waatana hadiyadan yar ayaan idinku talagalnay marka inaad naga guddoontaan ayaan rabnaa waa isa soo kalifnay yaa naga guddoom hanagu xumaynina mahadsanidin maadaama gabadheed hadiyad qurux badan aad u keenteen run ahaanta waan idiin mahad celinayaa hay saas weye annagaba hadiye ayaan idinku wiilkayga kaala bal hal mar ina fariisibal mahadsan thanks aad baad u mahadsantahay ma furi karnaa waa furi kartiin waa iska caadi hadda arkeenaa midkay dooqiisa noqoto
هاي بيلوي دحنتي على نكون طخ يا أخي. هاد صيرت اللي صارنا اسك يا قوان عادي هو صار له نور ولا ده aad buu u qurux badan yahay run ahaantii habeenkii luugtas ku fiican yahay dhaxanta la isaga dhigo arooska waxaan qabaqaabinaynaa 25 run ahaantii aadaan ugu faraxsanahay guurkan inuu dhaco taada kale guurka hore gabadheeda dad fara badan ayaa imaadeen meeshaasna buuqa laga sameeyey reerkeedana way imaan waayeen balse hadda waxaan rajaynayaa reerkeeda arooska inay kasoo qayb galaan hindi hadduu ka dhici lahayna barbalemka wuuba sii badan lahay hasii bata muxume horta dhibku muxuu yahay isla ogaanay inaan ogaanaan rabnaa oo dhibka ma tiri sideen kuuga dhib male anaa ku sheegaa gabadhan aad u jeeda guurkeeda markuu dhacay adeerkeeda 25,000 ayaa siiyey haddana wuxuu dhahay 25,000 hadda miyaa liiga rabaa taada kale waxaaba ka sii daran abtigeed waxaan siiyey makiinada raashinka lagu kariyey haddana wuxuu dhahay mataqaanaa makiinada way iga dhuntay haddee ka dhuntay maxaan u qaban karaa dhibaatada taasay ka taagan tahay hooy waxyaabahan maxaad uga doodaysaan haddii aysan hadiyad keenin waa iska caadi taas sidee ku suurtagalaysaa qof aroos u socdo gacmar miyuu haddii la iska dhaafo ka baran sidee wax u wadaa gabadhayda kuwa arooska soo diyaari liisay keenayno waa kay fiiriya liiskan kole inaa aqbalaysiina ila tahay liiskanna idin anfacayo fiiriya si fiican oo la arko fiir jibsiga soo qabo balhan mar bas hoo cun waa maasantahay gowsal ana ahay labadiina cunuga yaa si fiican u daryeeli jiray macnaha yaa ogaa jiray xaaladiisa oo ka warqabi jiray ya maxay tiri شوف ترتيب يا قف عملها بالله ترتيب نف قاضي بس هاي ترتيب اوكي شوف فريسه مرك هاي هذا فاهم بدارا عنك سoo koriyay wax kala ma jiraan waxa si la yaab leh haddii ay ku bilowdaan run ma wanaqdaanba gadaal ayay been ka noqdaan wax walba wayna isbedelaan ma aqaana sababta waxay tahay hadda ayaan ku fahmay waxaad ka waddaa wax walba maxay u qaldamaan marka hore haddii ay wanaag ay ku bilowdaan soo sax ma hadalkayga waa saxan tahay nolosha mid fudud maxay u noqon weysay wixii wanaag ku bilowdana wanaag inay ku dhammaadaan maxaa lagu diiday bas iga jooji aabbo adiga qarashka arooska waxba ha ka fikirin inaad isku murjiso looma baahno aabo aniga iyo jey ayaa qarashkao dhan mas-uuliyaddiisa qaadayno gabadhaydii adigoo lagu guursanayo lacagta sidee ku bixinaysaa aniga middaas kaama oggolaanayo aniga ayaa bixinayo gabadhaydii lacagta aan aniga hayo waxaan u qorsheeyey inaan idinku guuriyo adiga iyo walaashaada haddana qorshahaaga ayaan kaaga ciyaaraya maadaama aan arrinteeda yaakhay gabadheedii sidaas inaad u hadashid looma baahna aabba waan ku baryayaa arrintan aniga iyo jey inaan ka soo baxna noo ogolow ilaan annagaa ballantaas qaadnay mideeda kale qarashkaaga waa uu kuu baaqanayaa soo maahan dhibna ma arkaysid lacagtaan adiga kuu qarash garaynaya miyaa si kale u aragtaa sidaas kama wadin aabbo soo baxaya maxaad sugaysiin waa kas waa lay wacooyaa waa ku baryaa aabbi fahanno maya gabadheeda hawalwalin adiga jey caddaanaa mise buluug jey adigaan kula hadlaaya maadii jawaabtid caddaan mise buluug caddaan waayahay caddaan arooska waxaa lagu dhigayaa meel kiniisadda u dhow si hadhow markaan isdiyaarino annagoo soconayn aan u soo galno meesha dhammaanteen xagga ayaan isku wada arkaynaa haa jey haye meesha waa ijaarta soo maahan may maxaa dhacay aniga waxaan ku fikirayaa xafladda gurigeena hool ku yaal inaan ku samaysano ileen kiniisadda iyo gurigeena way isku dhow yihiin wax kale maahan ifaan marka dhib male adiga sidaas inaad samayso wax kale maahan lacagtaada ku badbaadinaysanay waa kula soconnaay ila fiir waa kana naqshadii arooskiina iyo qaabka uu dhici lahaa naanka soomaana soo qurxin ma la socotaa gabdhaheena markaan yaryaranahay
alaabalaabeeda sababtaan iskugu guurino sababtoo ah annaga oo yar ayaan boqorshaynaynaa mar uun in nala guursanayo maalinta arooskeenana maalin weyn ayay noo tahay marabna wax yar inay naga qaldamaan asxaabteenoo dhan ayaan iskugu wacnaa gurigana si wanaagsan ayaa loo sharaxaa waxaan isku daynaa wax walba inay quruxsanaadaan oo sharaxaddana aysan waxba ka dhinnaanin run ahaantii waxyaabo badan ayaan kala dabarnaa maalinkaas anigaba gabdhaha alaabalaabeedooda isku guuriyo ayaan ka mid ahaa waxaana rabaa arooskayga si qurux badan inuu ku dhaco run ahaantii ma dhahayo arooskayga qarash weyn in la geliyo ayaa loo baahan yaha balse waxaan rabaa mid khatara inuu noqdo sababta looga dhigayo arooskayga mid iska caadiya maxay tahay ilaa iyo hadda waan aqbali lahay arrintan aniga waan la socdaa guurkan kii labaad inuu yahay balse maahan taas micnaheeda wax walba inaan ka tanaasulo waxaan u baahanahay aroos qurux badan in lay dhago jay aniga waan daalay arrintan oo dhanba waan ka daalay adiga waalidkaagana hadiyad ma aysan keenin maalintay waalidiinteeda isbaranayeen sidoo kale aabbahayna wuxuu qorsheynaya aniga hal mar oo kaliya in lay guursanayo mar labaadna ma uusan ugu talagelin in lay guursado adigana waxaad go'aansatay si aad aabbahay u soo jiidato darteed inaad adiga beertaada ku dhigta arooska soo maa waaye dhibka aniga maa wada ii sheeg kaal adiga isbeddelkan kaa muuqdo waa maxay adiga hadda ma waxay kula tahay aniga inaan qaylinaayo may aniga ma xanaaqsani waxaan dareemayaa arooskan aniga oo keliya inaan qorshaynayo oon ka fikirayo dadka kale dhibaato ayaga gooniya ayaaba haysato qof walba wuxuu ka fikirayaa reer kale ama waxyaabo asaga gaar u ah aniga ma wala iga fikiraayo yaqay dhibkoo dhan faamilkaaga ayuu ka socdaa aniga wax walba waan dareensanahay laakiin adiga cidla ma tihid aniga ayaa garabkaaga tagaan labadeenna si wadajir ayaan wax walba u qabanaynaa maalintii waad ogeed hooyadaada aabbeyga ayay wax ka sheegaysay sidaas ay tahay anigana arrintaas waxba uma arkin teeda kale marka hore adiga aad baad ugu faraxsanayd familkayga markaan kulansiinay laakiin reerkaaga markaan kulansiiyey kadib adiga waad isbeddeshay xataa waxaa kugu adkaaday si aad ugu sheegi lahayd arrintaas wax walba aad samaynaysidna wax fiican maahan waad ku qaldan tahay keliya waxaan rabaa inaan kuu sheego sababta arooskayga dartiis aan qof walba ula dagaalayo maxay tahay aniga maxaa lii cilciilayaa ii sheeg bal arrintaas adiga run ahaanta waad saxan tahay anigana maanta waxaan dareemayaa arooskayga koowaad probleemkan oo dhan maba arkin laakiin arooskayga labaad anigoo dhan waxaan noqday wada problem I'm sorry waan ka xumahay micnahayga aniga sidaas ma ahayn waaw aniga waxaan ka fikirayaa arooskayga mid qurxan inuu noqdo balse ninkii guursan rabo wuxuu ka fikirayaa kiisa hore inuu mid wanaagsan ahaa yaqay waa kuu sheegay hadalkayga sidaas ma ahayn waa ku badaya inaad fahantid isku day ma diidani dhibkoo dhan familkaaga inuu ka socdo taas laakiin micnaheed maahan aniga inaanan ku dareemayn ama garabkaaga aanan taagnayn wax walboo jeceshaa waan dareemi karaa ifaham baa ku badaya runtaa miya aniga waa dareensantaa miya dareenkaygana waad qadarisaa soo maahan haddii ay sidaas tahay hiddaha iyo dhaqanka familkayga maxaad u fahmi laadahay maxaad iskugu dayi weyse ma intaasoo keliya aniga ma usdeen waxyaalahaasay ku murgi doontaa maxaan uga murgi waayay ii sheeg arrimahan oo dhan ayaan ka murgayaa iska ilow yaaqay waxyaabahan oo dhan iska ilow maxaad ku wadaa ilaa ay hadda anaga dooddeena ma dood ma ahan arrintan ee waa dagaal jay aniga adiga dad midaysan ma nihin adiga waxaad ka fikiraysaa reerkaaga anigana reerkayga ayaan ka fikirayaa arooskana qaabkan kuma bilowdo waad saxan tahay arooska qaabkan kuma bilowdo hadduu ku bilowdona meeshaas ayuu ku soo afjarmaa waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanaa wada hadalkeen inaan ka gungaarnay waad ku saxan tahay waxaan loo baahan guuri kor wax walba inaan kansalnay maxmo okay maxmo नहीं देखा मुझे एक बार ओ भीगी सी आँखों से गया एतबार
गुजार फिर से फिर से फिर से फिर से arooska anagaa diyaarsanayna teeda kale dharkii hore nooga yaala aa jarjaranayna arooskana kaasaa ku sharxanayna waxaa laga yaabaa arooska macaan inuu noqdo anaa ku dhahay duqana lacagtiisa waa u badbaadaysaa aab waxaan oo dhan iska jooji arooskana ma dhacaayo gabadheeda maxaa dhacayna maxay su'aalaysaa ii sheeg balse kumarin arooskaa ma dhacaayo waa intaas oo keliya waxyaabaana iga joojiya ukaadi ma hooyada ayaad sidii cunug yar camal u canaananaysaa sidaada bannaanba dulqaadka ayaa kaa maqan haddii dulqaad aad samayn lahayd guurkaada sida fudud ku burburi ma ku burburi lahayn dhallinyarta maanta jirta waxaan la yaabay si fududaa laysku guursanaa iyadoon la isfahmin dhaqsabba waa lagu kala tegayaa warkaali idinka guurka maxaad u malayseen wax fududaa war guurka waa mas-uuliyad la qaadaayo aad ayaan uga xumahay gabadheedii go'aankan qaldan aad qaadatay sidaadaba isdhexgalka bulshada ma fahansanid sidee mas'uuliyadda guurka ku qaadaysaa ood qof ku fahmayay saas darteed ayaad meelaha la warwareegaysaa nafsaddaada haddii aadba ku kalsoonin sidee mas'uuliyad ku qaadaysaa waa maya gabadhayda intaad go'aan qaadan kartid waad qaadatay maanta wixii ka dambeeya go'aankaada aniga ayaa iska leh arooskaadana meeshaan annaga rabna ayuu ka dhacayaa waana inaad isdiyaarisaa yaqi dhaxanaa i hayso saa'id weliba hadda ma dareemaysa मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी और ऐसे के रह जाए इस चोरी में न कमी तेरे सीने में मेरा दिल धड़के और रात गुजर जाए मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी रेशमी जुल्फों के झरने खोल दो पंखुड़ी से लबों की कुछ बोल दो गर्दन की इस
सुराही से कुछ जाम छलक जाए मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी कुछ कहो ना भी होने दो गुना जिस्म को तुम मेरे खुद में दो पना कोई चोर हवा दो जिस्मों से होकर ना गुजर जाए मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी और ऐसे के रह जाए इस चोरी में ना कमी ay atori devdas arage intas fadhiya waa dhadhamooya ay koran buu malaynaa inaad saaran tahay adna inta labiska fadhisaa miya shaxshaxloo shankarong waxaan malaynaa gabartaada inaanaba jeclaaninba absolutely sidaas weeyaniyo been kuma aadan sheegin wax kasta haddii uu sameeyey gabadha wax jecel oo muusan qaadin jacaylka micnihiisasba ka saynin maxasuubiya horta absolutely 30 sano muddo laga joogo waa maalinta koowaad oo war saxan afkiisa uu ka soo baxo ninkaani hor fadhiya maanta muddadaa 30 sana run ahaantii rafaad fara badan ayaynu soo marnay dadka deriska aad baynu aflagaadayn jireen wax alaalay waxay rabaan bayna dhihi jireen waan u dulqaadan jirnaa habe maan weliba markiin adig ku soo helnaya baka daranba qaabkii aan rabnay inaan kuu korina waxay bana dhahanba idinka lamadiina waxaa cunugaan u qaadateen cunugaan maxaa u qaban kartiin shaqa ahaysiina ma lahan unakana runtii ma fadhiisanin waan dadaalnay ugu dambayntiina waa ku korina dulqaadanna kugu korin laakiin adi waa kana jecelka waa ka soo rarti meeshaana fadhisaa waa iskala dhamoysaa taas maal rabaahe run ahaantii su'aalaha ugu fara badan nala weydiin jiray waxay ahaayeen laba nin baa tiin gurina waad wada degan tihiin cunugan yar hooyadiis xagee ka baxday maxaa dhacay hooyo maxaad ugu keeni weydeen iyo waxyaabo noocaas oo kale ah laakiin waan isaga dulqaadanay ugu dambayn waan ka soo gudubnay waddanka aan ku noolayna waddan qurba ayuu dalkeenni ma joogin waad garan kartaa waddan qurba marka aad joogtid dhibaatooyin fara badan ayaa ku soo wajahaya laakiin sidaas oo ay tahay waan ka gudbaynay waxaan uga gudbaynay kalgacalka iyo maxabada naga dhexaysay si wanaagsan oo qurux badanna waa aan kuu soo barbaarin adigana gabadhii aan kaa rabnay inaad noo keento waa dayacdoo meel cidla aad uga soo tagtay abba maa gabarta inaad ka soo tagtid maahan walaaltinimada iyo maxabada aan isku qabno hal rabi inaad fahamtid qiimaysid kadibna gabadha noo keentid laakiin aawahe halbacaad lagula siyaabka dhigta baa wixii dhane aniga wax weyn ma u baahni kaliya waxaan u baahanahay qof inuu garab isiiyo wax walba oo dhaco kaliya waxaan u baahanahay adiga garabkayga inaad taagnaato waan ka xumahay laakiin aniga ma ka helinba waxyaabahan taleefanada la iskaga dirdiraayo khatar maahano jacaylkaaga si tartiib tartiiba ayuu igu galay kadibna si toosaan kuu jeclay nolosheeda inta ka harsan adiga oo keliyaan kula noolaana aniga wax weyn uma u baahni soo maahan kaliya waxaan u baahanahay qof garabkayga istaago
maxaad ku fikiraysaa gabadhayda gabadhayda ma la socotaa hooyadaa marka ugu horraysa oon arkayay sida hadda ay u carab dheer tahay ayay u carab dheereed laakiin ogow aad ayaan isu jeclaan farxad ayaan issii jirnay marba marka sii dambaysa xiise ayaan isu qaadi jirnay gabadhayda qofaad jeceshahay siduu yahay haddaad isku dayda inaad ka baddasho ma ahaanayo qofkaad adiga hore u jeclaatay waa saxan tahay mala socotaa aabbo adiga iyo jey xoogaa isku fikir ayaa tihin aniga iyo jey si wanaagsan ayaan isku fahanaa sidaas ay tahay islama joogno sababtaas maxay tahay aabbo sababta aad wadajir ugu noolaan weysay labadiinna asiga la soo weydii maxaa soo hadli laayaahe ugu horreyn adiga ma la socotaa labadeenna markaan kulannay waxaan kulan sida laba qof iska caadiya oo kale arrimahayga xataa si fiican ma kaaga sheekeynin balse hal habeen ayaan xoogaa sheekada ku bilaabay wixii ka dambeeyna warqad ayaan kuu diyaariyey warqaddaasna ilaa hadda booston kuugu soo dirin sabab maxaad iigu soo diri weysay ma xasuusanno arrimo kale ay ku mashquuleen warqadda aqri okay dear kajal run ahaantii aniga kulankeena aad iyo aad ayaan ugu farxay waxaana taas iga sii farxad badneed adiga waxyaalaha aad jeceshahay adiga qosolka zaa'idka ah ma jeclid waxaad dhahdaa qosolka zaa'idka ma fiicna ee marar waxaa fiican qofka nolosha inaad wadaagtaan anigana warqad ayaan kuu diyaariyey warqaddana kuma aanan soo diran ilaan adiga mar walba waxaad jeceshahay in warqad lagu soo diro oo weliba boostada lagu soo dhigo run ahaantii qaabka jaceylka u fahansan tahay aniga waan ka helay weliba adiga waxaad jeceshahay boostakaaryo in lagu soo diro mana jecel message in lagu soo diro ama telefoon qofka aad ku wada hadashaan mana u baahnid dadka duniyadan jooga nasiibkaaga inay fahmaan ee waxaad u baahan tahay lamaano oo mar walba cidlada kaa bixiyo inaad raadisana lamaanaas maba loo baahno ileen jee ayaa mar walba garabkaaga ah kaajal mala socota annaga wax walba waan heli karnaa laakiin aniga ma ihi qof dhammaystiran adigana ma tiid qof dhammaystiran laakiin labadeena haddii aan midoon waxaan ogahay inaan noqonayna dad dhammaystiran ileen aniga waxaan ogahay aniga 40 inaan jiro adigana 20 ayaad jirtaa psychologina waad soo bartay dhibkan ma ahan dhibka hadda jiro oo keliya dhibkan waa dhib weligiisa iska socon doona laakiin waxaan ogahay mar haddii aan labadeena midoono dhibkaasoo dhan xal inaan u heli karno oo weliba nolosha inaan ka fogey karno mararka qaar adiga ayaa go'aan gaaraayo mararka qaarna aniga ayaa go'aan gaaraayo laakiin aniga hal mid ayaan u dulqaadan karin micnihii la'aantaada ma noolaan karo iga aamus labalabadan iga jooji ayaan ku dhahay kadibna ishumi laakiin faamilkaaga hortooda macquul maahan hadda sheekadiina ayay dhegaysanayeen haddana marna adiga ii dulqaado marna anigaa kuu dulqaadanayo I love you. Tell me you love me. I love you. mar labaad ku soo celi naga dhaafno waan ku jeclahay si xad dhaafo anigaa kaa daran run ahaantii nolosha ayaa iska ah mid iska caadi ah hadal walbana waa laisu fahmi karaa laakiin annaga waxaan aragnaa wax noo muuqdo oo keliya ee hadda adiga ii sheeg go'aan ma gaartay
yaas adigu guursanayo nin wanaagsan waad ujeedaa soo maha ugu dambeyntii waa lis afgartaa ku dhahay ayaa anagana maxaa isku afgaranaynaa haye maxaad samaynaysaan naga raali noqda dadka aan midoobi rabno aa isfahmoonaa wax kale ma waa la gacan galay filimkan waxaa lagu tarjumay mar labaad ayay bilaabeen Mogadisho फिर से 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 खिड़की पे आई है कुछ बारिशें ओ भीगी सी लाई है संग ख्वाहिशें फिर से मौसम ने बेइरादा लिए करवटें पानी में लहरों की बढ़ी हरकतें फिर से फिर से फिर से फिर से कुछ आहट सी जब होती है घबराहट सी फिर होती है बिन बात के सिर हंसी कुछ होती है क्या मिलेंगे इस दिल को नई मंजिलें क्या सजेगी दोबारा वही महफिलें फिर से 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 फिर से